qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa mulkiilayaasha dhismayaasha u sheegay inay dhibaato ku qabaan jaranjarooyinka ama kaabadaha daaraha marka korayaan maadaama aanay iyagu halkaasi ka talaabi kareynin. Dadka naafada ah ayaa ka codsaday in guryaha dhisitadooda lagu sameeyo marino ku haboon dadkaasi lixaad kala. Wariyaha BBC da Hargeysa Sidiq Burmad ayaa weydiiyay Maxamed Muuse Jaamac oo ah wiil dhalinyaro ah oo naafa ah kana hawlgala warbaahinta gudaha xaaladooda. waxaan ahay Maxamed Muuse Jaamac oo loo garan og yahay Haldoor. waxaan ahay wiil aan u dhamayn lixaadkiisu laakiin ku faraxsan kuna faanaya qadarka Ilaahay uu qadaray. xanuunka igu dhacay waxay dhaqaatiirtu ku sheegeen meningitis anigoo da'yar ayuu igu dhacay markaas oo dhiganayay school boardina. markii uu asiibay xanuunkan igu dhacay ma noqon mid nolosha ka niyad jaba oo isdhiiba, laakiin waxaan isku dayay inaan hore u socdo oo aan noloshaydii dib bilowdo. waxa dhacday inaan hamigaygu noqdo inaan weliye noqdo. in badan oo sanada abaan ku hamiyay inaan weliye noqdo anigoo ka soo bilaabaya radio yar aan cajalada ku duubayay anigoo weliye iska dhigaya. alxamdulillah maanta waxaan joogaa anoo rumeeyay riyadeydii saxafinimo. waxaan ka mid ahay weliyaasha Soomaalida ee ka hawlgala mid ka mid ah TV-yada Soomaalida. waxa ka mid ah imika waxaan ka soo baxay warkii waxaan doonayaa inaan barnaamij xagga sare ku yeesho marka waxaan doonayaa inaan tago laakiin kaabadii wali way hortaagan tahay. caawinaad asxaabteeda baan u baahanahay. nolosha sideedaba lagama waayo caqabad iyo wax adag oo ku hor istaaga. waxa dhibaato weyn nagu haya jaranjarooyinka dhismayaasha wadankayaga. aniga iyo kuwa ila midkii waxay doonayaan inay wax bartaan, inay shaqaystaan iyo inay Ilaahay u cibaadaystaan, laakiin meel kasta oo aan intaa ka doono waxa naga horeeya buur weyn oo aanan ka gudbi karin. tusaale aniga igu dhacdo kooban baan idin soo qaadi karaa. qaar ka mid ah asxaabteeda ayaa casuuntay. halka igu casuumeen waa mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa. waxaana dhacday markii aan goobtii sida u tagay inaan arkay inaan ahayn meel aan si fudud ku kori karo oo aan asxaabteeda waqti wanaagsan la qaadan karo. taasina waxay igu dhalisay inaan ka tiriyo tixdan yar ee kooban. farxad kula cawee baan lahaa culadadiiniye, khayrka la ciid baan lahaa caawa iyo leyle, mar haddaanay caadkay koreen caga ku gaadhaynin, cakuyeey maxaan fali bulshooy ciil aday badaye, dadka kale curyaankooda way wada ciseeyaane, cindigiisu wuxuu doonayay cududa saaraane, cilmi iyo waxaa loo dhigaa cashar aqooneede, cid inuu u baahdiyo dhib baa lagala ceesaaye, adna kaabaday celinaysaad igu canaadaaye, cakuyeey maxaan fali bulshooy ciil aday badaye.